أستغفر الله. assalaamu calaykum. waxaa la soo wariyaa beri-beryaha ka mida in nin boqor ahi uu u diray ciidankiisii khaaska ahaa si ay u soo kaxeeyaan mid ka mid ah la taliyaashiisii wakhti aad u dambeeya ama saacadihii dambe habeenka. haddaba markii ninkii la taliyaha ahaa uu soo gaadhay qasrigii boqortooyada waxa uu ku idhaahday boqorkii, waxaan kaa dhex doortay dhammaan la taliyaashaydii caqli badnaantaada iyo garaad badnaantaada awgeed. ninkii la taliyaha ahaana boqorkii uu u mahad celiyey. haddaba boqorkii baa ku idhaahday, waxaan caawa ilaa iyo haddaa la seexan waayey waayo su-aal bay igu wareegaysay oo aan u raadinayay jawaab. ninkii la taliyaha ahaana wuxuu idhaahday, bushaarayso boqorow, insha allah su-aashaada waannu kaga jawaabaynayay. boqorkiina wuxuu idhaahday, su-aashu waxa weeyaan midkeebaa fadli badan nasiibka iyo xurmada? ninkii la taliyaha ahaana wuxuu ku idhaahday boqorkii, xurmada fiican. boqorkiina intuu qoslay ayuu ku idhaahday, ra'yigaaga waxaan ku baabiinayaa daliil, haddii kalena aduu daliil ku caddee. haddaba markii uu waagu baryey ninkii boqorkaa wuxuu u baxay magaalada iyo suuqa si uu u soo eego oo uu u soo ogaado xaalka ay ku sugan yihiin dadkan uu u taliya. isaga oo suuqii dhexdiisii indhaindhaynaya ayaa wuxuu arkay nin muruqmaal ah oo ay baahi badan iyo saboolnimo ka muuqato. ninkii intuu u yeedhay ayuu cunto siiyey oo uu dhar xariira u geliyey, waxaanu ka dhigay mid ka mida wasiiradiisa. ninkii la taliyahaana aad buu la yaabay arrinkan uu sameeyey boqorku. haddaba boqorkiiba u yimaadeen ninkii la taliya ahaa oo ku idhaahday, keebaa fadli badan, ninka muruqmaalka ah iyo xurmada? ninkii la taliya ahaana wuxuu ku idhaahday boqorkii, jaanis isiyaan kuugu cadday inay xurmadu fadli badan tahay. maalintii dambe ayuu ninkii la taliya ahaana suuqa u baxay. waxaanu arkay isagoo suuqa dhex maraya dameer weyd ah oo aad u daciifa, uskag badanna saaran yahay. intuu magaalada dhexdeedii dadka iskugu dhawaaqay ayuu ku idhaahday, maxaad ka ogtihiin dameerkan? ma ogtihiin inuu nebiyadii ilaahay ka mida uu dhabarkiisa ku qaaday isagoo oo u daliishanaya waxaan jirin? ayuu yidhaahday, oo sawka sheegay qoraa hebel ee ku caddeeyey buuggiisa hebel. intaanu ninkiiba hadalkiisa dhammaystirin waaba dadkiiyo dameerkii xurmaynaya, ka cuntada u dhigaya, ka uskaga ku yaala ka maydhaya, ka timo ku yaalay ka goosanaya, ka barakaysanaya. waxayna dejiyeen dameerkii xero u gooniya, cid u shaqaysana way u sameeyeen. dameerkuna wuu iska cunayaa, iska cabbayaa, dadkoo dhanna intay u soo galaan bay ka barakaysanayaan. ninkii boqorkaana markuu intaa arkay ayuu madaxa qabsaday. la taliyihiisiibaa u yimaado oo ku idhaahday, miyaad garanaysaa boqoroo farqiga u dhexeeya nasiibka iyo xurmada? boqorkiina wuxuu ku idhaahday, bal noo sheeg waa maxay farqiga u dhexeeya? ninkii la taliya ahaana wuxuu ku yidhi, aduu boqoro waxaad siisay ninka muruqmaalkaa hanti, xilna waad u dhiibtay, laakiin waxaasoo dhan waa wax suulaya, waayo beri tole ka maalin waad ka qaadi kartaa. laakiin anigu dameerka waxaan u geliyey dharka xurmada, xurmadaasna cid ka qaadi kartaa ma jirto, xataa adigu. haddaba innaga imise dameer oo ay dadka juhalladaahi u geliyeen dharka xurmada ayaa ku ciyaaraya danaha ummadda ee kala duwan. muuqaalkeena maanta xaggaasu ku joogaa. subxaanaka allaahuma wabixamdik, ashhadu an laa ilaaha illaa anta, astaqfiruka wa atuubu ilayk.